koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan adduunyay waalaley adduunyay waaye badanayaa la yidhi war sidaa ma ahane mar buu ku wanaajiyaa wakhtigu kuu hiiliyaa walaalkii kaa dhigaa sidii waqal kuu da'aa weedhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn mar baad kala weecataa waayuhu cadow kuu noqda war heesku sidaa ma ahayn dadka ha iska weynayn inaad keli wax garad tahay ha iska dhigin walaaley ayay ahayd war codkan yaa lagu cayuuminaniyo aamus war sidaa ma ahee waxa weeyaan waxgarad iyo waayo arag ruuxaan waanada ka maqal dantiisana wada aqoon darxuma waagay timaad wareegay maadiga war heedhe warkayli waalateena dhegansada war mahaytana hata ka hor Donald Trump may basaaday Minnesota meel leeyahay doorasho tartamay war Minnesota koonfur galbeed miyay ka tirsan tahay war niyo balaawa baydhaba xaafad kamid ah war dooyin ku darateen dhegansada miyaw Donald Trump Minnesota may ba ka eray chumchen chan intii usari yasoo galootiga Soomaalida ah dalka waa ka saaray usoo lijeeda geedwida ilika kuulada mas'ile barkasiisada gaaki ilhaanga baarlamaanki soo galooti may ka fadawlaha ay kursi dikka ku kayo hana fiiriyo hayta ishi bugtaay ku bikaaso ana ogaa olaha ilhaan Donald Trump waan ka soo horjeesanayaa bay ku gashay waana la doortay warnimayo annaga ilhaan oo kala arigay noo ilaalisay waa maxay Donald Trump ka hor imaanayaa ilhaan Umar may baartay Donald Trump afjay ay lugri edeb mala waana edebaan weele warti ilaahow inantaas la yiraahdo ilhaan Donald Trump ka adkaysay rabbiyo ha iska carare warin kasto Donald Trump cadow yahay haddana rag dumar loo malagday kada war anigu waxaan la yaabanahay salaad kiik inuu yiro ilhaan la doortay markii ilhaan madaxweynaha koonfur galbeed in loo doortay ma umile gudayow Mareykanka langolay mangaar alamba meelo ku waraabo galaanjada isla galado hayna warkay dheega hatta ko hor madaxweynaha dalka Mareykanka George Bush langili leey baydo digha ka eri baydo janaad waana may ha ka dhawaynay kasaaseeda Bush welcome boy wala usdii wal yaabi war koonfur galbeed salaad xog kama haye aniga iga dhageysta maanta barqadii lafta gareena seexday oo xalay iyo habeen horeba soo jeedi hal saac bal indhagaysu isir waa daashay kadibna waa riyooday wuxuu ku riyooday aw shariif oo iska casilaya tartanka madaxweynenimada iyo xilka hadda uu hayo iyo wixii oo dhan tirinaya kadibna gudoomiyaha baarlamaanka wiilkii shiiquna maya la leeyahay xilka sii haya inta madaxweyne la dooranayo kadibna waa asagu madaxweynaha la dooranayo noqonayo xilka loo tirinayo ayuu ku riyooday marka run ku suga riyadaas waa intaasay rumowdaaway asaga laftiisu waa asharaaf kale wartaasu mariya mise waa boos ciriiris riyo waa beeta laakiin ahdaamu adaqaada la ereeyay dhadhab way dhadhab Shariif Xasan oo ayaantan soo jeeday ayaa maanta duhurkii wax yar seexday kadibna wuxuu ku riyooday isagoo koonfur galbeed ka tanaasulay baarlamaanka kursiga wiilkiisa ku fadhiyo ka kacsaday kadibna mooshin ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee kursiga mursal ku fariistay kadibna khayriye farmaajo fadhi miyaa u yaal war waa xeeralaaliyaha qaranka ninka riyooday waana xalay markuu seexday shariifka koonfur galbeed ka tanaasulay si uusan xildhibaan u noqonna uu eed ku soo oogay oo maxkamad warqad ka geeyay ninka ku riyooday waa xeeralaaliyaha kaasada sheegaasi riyoodis baddalan way afkiisa shaafti awjinay usa ku shukayna ilaahay walka ere fi siyaasa laysa baadilan war anigu abi ahmed waxaan oran lahaa askar Itoobiya Soomaaliya ha keeni warniyo waxa riyooday waxa weeye waa Muuse Bixi riyadiisuna indhahaba ma marbarato waa rumowda waxaanu ku riyooday isagoo ictiraaf caalamka oo dhan all of the world ka helay kadibna roog guduudan ama roog cas loo dhigay qaramada midoobay qoladana jaarka nahay ee Soomaalida balmaluuqooda batay isagoo heshiisiinaya warnimayo xaaf baa riyooday war ma haysaane odagu mana hurdeesha casirkii weeyaan markuu riyooday wuxuu ku riyooday Abdiwali gaasoo dekadii habyo u dhisaya warnimayo riyo waxa ugu daran midda Axmed Madoobe riyo doone intuu sar riyoon ka hor halka naga joogto midda Xasan Daarweys habeen iyo maalinba ku riyoodana war Abdiwali gaasoo wuxuu ku riyooday madaxweynaha Soomaaliya farmaajo bedelay inuu noqdo war waxa riyo aad sheegaysi midda Shariifa ugu dhow sababtoo ah waxa maanta luqunta ugu jira wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan 2 saacadoodna waxa uu kula jira shir albaabada u xirnaayeen marka waxa loo maleeynaa inuu yiri adeero iska tag waa nagu daahde
war may baa dheegi jiray misaar madi mooradii ooda mooro islaameed oo lase dheegi jiray qarafaankaadi sheegaas warya meelatiis lexmada weyni ka jiraan meeli maseedo may bay dhawjanaay ku weydiye war waxa kugu borogaraamsani ma jiraan wasiir deegaan gaara male waddankoo dhan buu wasiir u yahay 4.5 tasaas ma ku qoran warya 2 saacadood uu shir kula jira markaad leedihiin masakiintii shariif baa af beeshay siduu uga badbaaday war sakiinta nabad iyo nolol ka af badan war jawaari oo sanada ka hor la dardaarmaya baarlamaanka koonfur galbeed ayaa yiri waxaan idinkaga digayaa laaluush iyo inaad lacag qaadataan usiiba dhiibay heetaas joog macallin adigu naafada diyaarta laad kamid tahay marka warkii jawaari oo sanada ka hor ahay idaacadaha hadda baahinaya oo war cusub ka dhigaya war hunduraaye toos haddaan u macnayno tilmaamahan kalamaan talax tag maanay ahayn war taraha tag mee runta tooski sidaayan niyow war dadkii ciidamada amisom huri waa ku laayeen isbitaal madiina faranjiyeera waa looga waayey marka barafaan santuuq ula shubannay markaa dawladdu may arrintaa degdeg wax uga qabata mise barafkaan u soo siyaadsanaa war dawladdu baydhabay ku mashquulsan tahay barafka u badiyo ku sima war maxabaalaa loo waayey war aylan howaale laka tiriye war maysiina dadkii ku dagaalamaya gobolka sool dhumay meeshii la dhahay ciidamo Itoobiyaan kala dhex galay marka qowdan Soomaaliland baa la yiraahdaa sheekadeedu waa dhamaatay war adeer Itoobiya naga xidid fog baa naga dhaxeeyo qadiimiya war gudoomiyihii mucaaradka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro wuxuu yiri gudiga musuqmaasuqa ee doorashada ilaa ay la kala diro doorasho Soomaaliland ka dhicmayso war adeer malmaluq buu diiday Cabdiraxmaan Cirro ku tayda war markii laga hadlay dadka bidaarta loo inay naafada ka mid yihiin oo baarlamaanka ka doodayay saaxiibkay salaad wuxuu la soo booday qofba meelu naafa kaya war cali garuun batimaha waa loo soo abuuray ee naafadu ka mid yahay war xilwaanada bidaarta leh ayagana ha abuurtaan in mar walba la sheegi lahaa war haddii bidaarta naafa lagu xisaabay cirro maxaa laga yidhi iyada war antaasi agdeen hooba naafanimo eyin lankii hoosna ka yaryar oo korna ugu wiin may ka sheegdeen war gudoomiyii lagu kalsoonaa ee baarlamaanka maanta ka oramkii uu buuxsami waayay digniin baanu dirayaa markii u dambeysay oo yiri wara kuruykino arabta looda leh gudoomiyaha baarlamaanka nangaftoy digniin baan u diraa warjay mee wariya nimantiyo andige wari aw mansuur ma la doort waryaaya ku haanleydii inda geel la sheegad u egtiine nugu kala kaxeeya meesha war landargan warshay la tageega hafladii abwaan abdidhuu inoo ka qadayti kii dhaharagay laga kana oo hoosna yaro korna ugu wiin war adeer ma maarayay tiyaatarka laga dhigay war cabdidhuu xasees ma qurb jooga war waa runtaa waa nala joogsamay markaan qadaynayni waryaada warka aad sheegaysi uma joogna maanta doorasho loo kala dareerayaa nuu kala wada meesha waraa Soomaalida Mareykanka joog faraxsan yihiin xildhibaanay la heleen hadii aad ugu socoto waraa Imaaraadka Carabta iyo nabad iyo nolol dagaal baa ka dhacay ormo waa lagu soo dul rabtaa garac warta hadii